shirkii qiimaynta warbixinta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay ee xafiisyada heer deegaana oo muddo 5 cisho ah ka socday howlka shirarka ee Qaryaandudaan ayaa la soo gabagabeeyay. qiimayntan waa shir gudoominayeen madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Aadan Faarax iyo wasiirka xafiiska madaxtooyada Mudane Xasan Maxamed ayaa waxa lagu soo afmeeray 3 xafiis oo kala ah xafiiska jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida, xafiiska adeegga shacabka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha iyo xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee dowladda deegaanka Soomaalida. waxaana si toos ah loo guda galay soo jeedinta warbixinta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay ee xafiiska jidadka dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan u kala qaadnay jidadka waa bridges iyo roads. marka roads waxay u qaybsamayaan ongoing iyo new iyo kuwa maintenance marka iyo dhibaatooyinka wixii xal ahaana waan soo dhignay. marka aanu nimidna xafiiska waxaanu bilownay inaynu tagno project kasta inaanu monitoring and evaluation iyo supervision aan ku soo sameeyno ka bacdi halka aanu planka xagan ka qaadanay xagaas ahayd. marka project kasta plankiisa waxaanu ku saleynay statuska meesha uu marayo ayaanu ku saleynay. kadib soo jeedinta warbixinta xafiiska jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay mas'uuliyiinta ku jiray qiimeyntani ay si cadcadaan leh ugu soo dhigayeen tala bixin iyo su'aalooyin kala duwan oo khuseeya waxyaabaha u qabsoomay, kuwa aan u qabsoomin iyo sababaha ay ugu qabsoomi waayeen. hadda fi'ad presentationkiisu wuu fiicnaa laakiin kuma arag inta badan waxa laga sheekeeyaa marka mashruuc la qabanayo benefitka community-gu ka helayo haday shaqo abuur tahay iyo haddii ay tahay ama water harvesting ha loo sameeyo ama kulli presentationka kuma arkin waxa qurux badnaan lahayd maadaama xukuumadda hadda ajantayaasheeda koobaad uu shaqo abuurku koow ka yahay waxa aad u qurux badnaan lahayd in lagu daro project kasta inta dad ay ka faa'iideysanaysa wuxuu qabanayo saasa kulli yaa qurux badnaan lahayd. mashaariic fara badan oo federaalku ay wadaan baa iyaduna jirta oo xagga wadooyinka intayn leg batrool ku leedihiin su'aal ahaan qaar waxay targetka siday u socdaan laftigooda inaad idinku miyad la ogtihiin sida tan makafaafan ilaa iyo dhagax madow tan baabili ilaa iyo maraysa xamaro accessida noocaas targetkooda laftigoodu in uu xafiiska jidadku uu ka warhayo oo uu yiraahdo hadda qorshaha noo yaalay ee jidadku sidan weeyaan ama federaalka idinku inaad isku align aad ahaataan aad baan yaan u jeclaan bal waxa dad war waxa balixina ka haysan aad naga siisaan. intaasi kadibna mas'uuliyiinta loo soo jeediyay tala bixinta iyo su'aalooyinka ayaa dib mikrofoonka ula wareegay si ay uga jawaab celiyaan su'aalooyinkaasi loo soo bandhigay. xagga federaalka marka ugu horeysan ku horeeyo federal projectyada ay wadaan hadda waa kuwa aan aad ula xiriirnay 2 jeerna waan u tagnay wixii damage geysanayaan macal shaqaalaha dadka yani localka inay ka hawlgeliyaan warqadana waan u qornay commitmentina way noo galeen xitaa damage ay u geysanayaan meelaha site-ka ay ka qaadayaan carrada ee quarry site-ka dhagaxa inta meesha ka qaadana inay magdhowgeeda xitaa bixiyaan way noogu ballan qaadeen. projectiga era bixisa laakiin contractorada iyada toos u lama xiriiri karno annagu waxaan toos ula xiriirnaa era oo project balabeed. marka inta badan projectyada waan kala xiriirnay xitaa waxay ii sheegeen projectyada ay fulinayaan sanadka dambe 2012ka projectyadeeda ay deegaankeena xitaa ku leeyihiin way soo gudbiyeen. marka qorshuhu soo socda GTP planka waanu ka wada hadalnay xagga dabagal fiican waan ku sameynay ilaa xagga anti corruption waan u gudbinay wixii kale waa talooyin asaasaan ku qaadanaa mahadsantii. intaasi kadibna madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Aadan Faarax oo bogaadiyay waxqabadyada degdega ah ee ay qabteen xafiiska jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale ku booriyay xafiiska inay fiiro gaar ah u yeeshaan gobolada aadka ugu baahan dhinaca jidadka ee ka qatana hadda ka hor kuwa kalena loo sii xoojiyo adeegyada dhinaca jidadka. arrimaha u baahan mustaqbalka in ahmiyad gaar ah la siiyo sida gurigaba looga shanqadhiyay mashruuc kasta oo aan dhinaca jidadka ka fulinayno saameynta uu bulshada iyo deegaankaba ku yeelanayo environmental and social impact assessment in loo sameeyo isla markaana saameynta sidii loo yareyn lahaa in falowgeed la galo ayaa laga maarmaan. kolka mashaariicaha la fulinay intooda badan inaysan lahayn environmental and social impact assessment
ayaa cad kolka taa mustaqbalka inuu xafiisku saxo wey dhinaca kale mashaariicaha hadda socda kuwii ongoingiga iyo kuwii sanadkan la qabtayba in la dedejiyo mudnaan gaarana in la siiyo meelaha aanu deegaanada kale kasoo wareegno sida daawa oo kale in ahmiyad gaara la siiyo sector ahaan xafiiska macnaha horumarinta jidadka ininkaa hogaaminaya gaar ahaan dhinaca miyiga sidaas darteed waxaa laga yaabaa miisaaniyadda in xafiiska lagu qabtay balse inaad dabagal ku samaysaan in la dedejiyo oo mashaariicaha dhinaca jidadku xilligii loogu talagalay ay fulaan inaad ka shaqaysaan in libkaa laydinka fadhiya kolka daawo oo kale fiiq oo kale in mudnaan gaara la siiyo iyo dhinaca city kolka kuwaas oo kale mudnaan gaara in la siiyo kuwa kalena jadwalkii loogu talagalay inay ku socdaan ayaa muhiim ah